waxaa khadka si toos ugu jira tababaraha kooxda kubadda cagta FC Sohdo Burhan Cabdullaahi. Burhan kusoo dhawow Hafida Production. Burhan waxaad naga warantaa maalinta beri haddii Allah awood la ogolaado kooxda FC Sohdo waxay kulan kamid ah koobka ka socda gaalkacyo la ciyaari doontaa kooxda FC Dalsan ka Sohdo ahaan kulankan sidee ugu diyaar garowday? koonfurta magaalada gaalkacyo dhanka galmudug waxaanu ka qayb ka yahay koobka saddexgalka kooxaha magaalada gaalkacyo runtiina waa kulan aad iyo aad u xamaasad badan maadaama uu yahay kulan semifinal tartankuna hadduu soo gaaro qaybaha dhexe waa uu ka xiisi badan yahay marka gurubyada lagu jiro marka aan u diyaar garoonay horena waan u diyaarsanayn ciyaartuna dee waa ciyaar lagu kala bixi doono 90 daqiiqo mana jiri doonto waxa la qaybsan doono oo waxay noqon doontaa in koox ay badiso kooxdii badisana waxay u gudbaysaa semifinalka marka ishaan ku haynaa kulankaas muhiimad gaar ah ayuuna noo leeyahay. aad baad u mahadsan tahay kooxdiina ciyaartoy ka maqan kulanka beri miyuu jira? hal ciyaaryahan ayaa wuxuu nooga maqan yahay kaas oo ganac ku sheegi doona ciyaartaas marka ciyaaryahankaas oo ciyaaryahan muhiim noo ahaa haddana marka ciyaaryahan uu muhiim ku ah kooxda uu ka maqan yahay waxaa ka sabaa in ciyaartooyda kale kooxda ee ka tirsan ay suuragal noqoto inay bixin karaan boosaska marka awal baanu haysanaa ciyaartooy kala duwan kuwaas oo aan aaminsanahay in ay natiijooyin fiican noo keeni karaan marka waanu kalsoonahay booskiisana waxaa buuxin doona hadduu ilaahay idmo ciyaartooydii kale ee kooxda ka tirsanaa. kulanka FC Dalsan ka kooxdiin ahaan sidee ugu diyaar garowdeen? wallahi kooxda naga soo horjeeda koox ciyaartooy fiican haysta waana koox runtii tartankan qayb weyn ka dhex muuqatay marka waanu dareemaynaa koox adag markay naga hortimaado inaanu inaguna wajahno oo aynu si adag uga hortagno anagoo laftirkeena waxaan ka mid nahay kooxaha tartankan si weyn uga dhex muuqda sidaa awgeed wax cabsi oo gaara haddaan dareemaynaa ma jirto laakiin maadaama kulan semifinal yahay haddana uu adag yahay marka sidaa darteed an waxaan qabaa inaan kooxna la oran keenin ayadaa gacanta sare leh balse natiijooyinka noocaan oo kale ciyaaraha noocaan oo kale wax kastaa laga filan karaa waana aqaanaa marka la ciyaarayo semifinal ciyaaraha noocaas oo kale ah marka waan ogaan doonaa hadduu ilaahay natiijada ciyaarta iyo waxay ku dambaysa laakiin anagu waa u diyaar garoona. markii koob la qabto inta badan kooxaha waxay sameeyaan ciyaartooy ayay dalbadaan kooxdiina ma ka mid tahay kooxaha ciyaartooyda u yeertay? runtii anagu ciyaartooy gaalkacyo ka baxsan oo aanu keensanaa ma jirto magaalada gaalkacyo tiimamo ka dheela oo labada dhinac magaalada gaalkacyo maadaama ay kooxo badan ka dhisan yihiin waa laga yaabaa in xaafadaha magaalada qayb ka mid a ciyaartooydooda ay noo ciyaarayaan laakiin sida caadiga ah hadda kooxahan ciyaartooy aanu ka dalbanay gobolada ama degmooyinka ma jiraan. wagaag kulanka beri ah rajo intee lag ayaad ka qabtaa in ciyaartooydaada guul kusoo hoyin karaan? wallahi haddaan rajo ka qabin kulanka ma waana soo aadneenba rajo la-aanina ma jirto waxaan aaminsanahay awood nagu filan oonu haysanaa ciyaartooy aanu ku xisaabtami karana oo noo joogaan ciyaartooy gameka noocaas oo kale ah natiijo ka keeni karana oonu haysanaa marka welwel badan oo aan ka qabno ciyaarta ma jiraan sidaa awgeed waxaan aaminsanahay in ciyaar koox kastaaba ay soo bixi karto inay tahay hadda koox loo saadaalin kara ma jirto laakiin waa laga yaabaa saaxiibadan xoogaa inay ayagu ay libinta issiiyaan oo ay is yidhaahdaan maadaama groupkiina kaalintooda uga soo baxdeen semifinalkana oo idinla sahlanaya inay is yidhahdaan suuragal laakiin anu ma qabo in ciyaarta gameka noocaan oo kale ah ciyaar furan in loo saadaalin karo koox gaar ah marka waan ku kalsoonahay inaanu gudbi karno hadduu alla ka macalin ahaan maxaa baaqa u diraysaa taageeraha FC Sohdo meel kasta ay adduunka ka joogaan? wallahi anaga taageerahan sida caadiga waa taageero inta badan si degan ciyaaraha u daawada oo aan
rabshado iyo dhibaato looga baran wax badan oo wanaagana inta badan lagu yaqaano annagana sidaas oo kale koox ahaan manin kooxaha inta badan rabshadaha iyo ku lug leh inaan kala laasa ka kiciyaan ciyaaraha marka sidaa darteed waxaan aaminsanahay taageerayaasheena sida caadigeeda oo nala baranay inay ku daawan doonaan geemkana ay natiijada kasoo baxda ay soo dhaweyn doonaan taageerayaasha daafaha kala duwan joogana oo guusha nala jecelna waxaan u sheegaynaa inaan dadaali doono hadduu alla idmo waxa qoranna lama sheegi doono laakiin dadaal baan la nimaan doonaa hadduu alla aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa macalinka kooxda kubadda cagta FC Sodo Burhan Cabdullaahi oo wareysi siinaya Hanfida Production. Burhan aad baad u mahadsan tahay waqtiga muhiimka aad siiseen oo kaaga mahadcelinaya.